wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwo Shukri Xaaji Bandare ayaa maanta kormeer ku martay xarunta nursery-ga ee magaalada Laascaanood waxayna kulan la qaadatay isuduwaha wasaaradda gobolka Sool Jaamac Maxamuud Xaaji Saalax iyadoona indhaheeda ku aragtay waxqabadkii ballaarnaa ee laga hirgeliyay wasaaradda gaar ahaan qaabka ay wasaaraddu u shaqeyso iyo sida ay u dirdirgelisay shaqada deegaanka ee muddooyinkii ugu dambeysaba ay halkaasi wasaaraddu ka waday sidoo kale howlwadanada wasaaradda ayay wasiiradu kormeerkan waxa ku helinayay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool iyagoona indhahooda ku arkay waxqabadka baahsan ee ka jira wasaaradda iyo sida ay u dadaaleen shaqaalaha uu mas'uulka ka yahay isuduwuhu isla markaana ay wasaaradda deegaanku ay tahay wasaaradaha ugu shaqada badan ka wasaaradahan Soomaaliland kana hirgelisay waxqabad wanaagsan oo muuqda ugu horeyn isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Sool Jaamac Maxamuud Xaaji Saalax ayaa ka warramay wixii uga hirgalay wasaaradda muddadii ay xilkan wasaaradda hayeen iyo sida ay wasiiradu shaqo baahsan oo xoogan uga hirgelisay deegaanka gobolka Sool xarunta nursery-ga ee degmada Laascaanood xarunta gobolka Sool waxa halkan nagu soo booqatay oo socdaal nagu soo gaadhay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Marwo Shukri Xaaji Bandare wasiir waxaanu ku leenahay halkan ku soo dhawow waxaad joogtaa xaruntii nursery-ga ee degmada Laascaanood xaruntani waxa weeye xaruntii wasaaraddu hirgelisay waxa ay kulay nagala qayb qaatay dawladda hoose dhulka bixisay iyo NRC iyo iyaduna naga caawisay kulay waan uga mahadcelinaa iyadana marka wixii kalena qolalkan iyo harkan iyo waxa kalena waxa noo dhisay wasaaradda baa noo dhistay waxa laga bixiyay miisaaniyadii dawladda wasaaradda marka wasiirkana waan uga mahadcelinaa waxqabadka wasaaradda waxay kulay halkan intii wasiirku joogtay sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool ayaa ku amaanay wasaaradda deegaanka had iyo goorba waxqabadyada muuqda ay hirgeliso say muhiimad ugu leedahay wasaaradda deegaanka say muhiimad u leedahay dadku waxay moodeen inta badan wasaaradda deegaanka inta badan wax kale ka shaqeyso laakiin seerayaasha iyo xayawaanaadkan ama wildlife waxa loo yaqaan la iska guranayo inta badan iyada ku shaqale saakan waxaan joognaa nursery-gii oo ah meeshii lagu beerayay dhirta oo waad aragtaan wax dhir ka soo baxaysa maalin dhowna waxay kaga maarmayaan dhirtii laga soo waayay gabagabadiina wasiiradda ayaa iyaduna u mahad celisay shaqaalaha wasaaradda deegaanka iyo isuduwaha isla markaana ku bogaadisay shaqada ay magacahan u soo jiideen wasaaradda weyn bay anaga noo tahay wasaaradahan waanaanu runtii jecelahay waanaanu dhisnay inaanu sii dhisnano waanu jecelahay wixii qabyo ah na runtii maanta halkan aan joogo iyo xafiiskaba waanu isla eegaynaa waan soo dadaalaynaa haddii la yidhaa halkan nursery-gan imanka waxaan ilaahay baa mahadle aad ugu mahad celinayaa inay dhulka dowladda hoose runtii iyadoo meesha markii horeba dowladdu lahayd haddana dowladda hoose noo sii asaan garaysona siisay annagoo yaaban oo meel walba dee runtii cidi sheegatay meeshan oo dowladdu lahayd in naloo ku wareejiyey sida la sheegay 10 kun oo geed baan ka sugeynaa sanadkan hadii la yiraahdo dhirta waxaan ka soo qaadaynay berbera inta badan dhamasta berbera looga soo rarayay marmaradiya dhirta kalena Hargeysa laga soo rarayay marka maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in iyagu la soo baxayaan dhirtoodii degmooyinka kalena ay siin doonaan hadii la yar kana sii balaarin doonaan sanadkan anaga qorshaha waxa noogu jira ka wasaaradahan 600 kun oo geed inaanu targetka Abdiqani Xasan Baara warbaahinta qaranka Soomaaliland